Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Hibo Hibaaq channel. Waa walaashin Hibo. Kusoo dhawaada channelkayga asxaabey. Haddii aad channelkayga ku cusub tahay subscribe, haddii aad hore noola joogi jirtay asxaabteeda ka mid ahayd, aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa. Soo dhawooyin badan asxaabey. Maanta waxaan noo wadaa miiskii mushamaca la dul dhigay insha Allah biidnillah. Bahalkan waa bahalka alaabta lagu keeno, alaabta yacni jajabka ka ilaalinaysa. Halkan waxaan ku haystaa waa bahal kale oo dhaldhalaalaysa oo hadhow aan kusoo xiri doono. Waxaan kale oon haystaa baskooladii, waxaan kale oo haystaa aluminium ayaan haystaa. Aluminiumka ayaan kusoo duubayaa because cadaankan ayaan qarinayaa sida qurux iigu noqoto. Cadaankan ayaan iska qarinayaa. Way kala qurux badan yihiin maaragtay aluminiumka iyo kanoo cadaan aan ku sameeyo. Marka sidaas ayaan ugu sameynayaa, aluminiumka ugu xirayaa. Soo dhawaada walaalahayga qaaliga in badan kulley waad aragtiin videoga intuu nagu dheeraan ayaan maaragtay aan u soo gaagaabinayaa amba aan u dadajinayaa. Baskooladii ayaan haystaa kooraanka. Baskoolada ayaan ku shubayaa, kadibna waan ku yar laabayaa, afkana waan ka soo laabayaa. Xoogaa ayaan iska jarayaa, haddii aan arko inay wax iga dheer yihiin waan iska jarayaa. Insha Allah inaad ka bogatiin ayaan rajeynayaa asxaabteeda qaaliga. Runtii waxa i soo gaadhay, halkeed ku maqan tahay, halkeed ka dhacday, sidee camal waaye, life baad soo gashaa asxaabay. Kulley inigama maqnay runtii, aad baan inigu xisaaniguba, laakiinse mashquulka adduunka baa lagu maqan yahay. Laakiin insha Allah ilaahay haynoo soo fududeeyo howlaha adduun annagii ummadda Nebi Maxamedba. Runtii waan yar mashquulay, sida ahaan baan iniga maqnaa, laakiin insha Allah biidnillah marba si aan inigu soo gelin karo ayaan inigu soo gelinaya insha Allah biidnillah. Inigamana maqni asxaabay. Maanta aluminiumka alaabtan yar ayaan helay oo sariir baa la igu keenay. Marka waxaan is dhahay alaabta ka samayso. Kulley anu markaan alaabta arkay waxay ku soo baxayaan sidaaba u fiiriyaa. Haddii aan wax aan rabo inaan wax yacni cajabiyanaba wax aan ku soo baxayo meelaan dhigtaa, kadibna waxaan rabo ayaan ka samaystaa. Marka kulley wuxuu ku anfacayo waxa wanaagsan inaad maaragtay aad meel iska dhigatid oo haddana isku eesayeysid. Haddii ama samayn kartaa waxaan horta isku day, waxaan isku day bay u baahan tahay. Runtii anoona isku soo dayin oo ma aragtay oo dhan horta waa intay kaa xumaatay samee ayaan inila hor yimaadaa. Marka laakiin haddana maad aragtay farsamadii iyo gacantii haddii aad garanaysid iyo qiyaastii kulley waxba kaama xumaanayaan. Waa la isku dayaa mar labaad mar saddexaad, marka dambe inaad la keenaysid baa ayaa hubaala. Iminkana kii bartamaha ayaan samaysanaynaa asxaabay, ayaan hadal inagu daalin. Insha Allah biidnillah kii bartamaha ayaan samaysanaynaa aan dhigan lahayn. Aluminiumka ayaan labada dhinac kaga soo xirayaa, afka ka soo jarayaa baan u jeedaa. Kadibna afka ayaan kaga soo yar laabayaa, saa baan kaga yar xirayaa in yar intaan koolada yar mariyo. In yar baan iska jarayaa, kadibna koolada ayaan ku yar laabayaa. Waaba inta bartamaha ayaan dhiganayaa insha Allah biidnillah. Waad arkaysiin kulleyba iniga sii hordegi maayo. Koolada iska ilaaliya insha Allah inay faraha inigaga dhigin. Anu marka aan ku sameynayo aan xidho waxa iga fudud markaan gacanta caadiga ku sameynayo. Waa ka asxaabay hadda labadii giftin afarta giftin ayaan ka soo xidhayaa insha Allah biidnillah. Kooladan ku shubayaa, kadibna saas ayaan ugu soo xidhayaa. Fiiriya sida ayaan ugu xidhayaa. Ta kalena sidaas leeg ayaan ku soo xidhayaa insha Allah biidnillah. Afarta giftinba sida ayaan ugu soo xidhayaa insha Allah biidnillah. Asxaabay saddexdii sida ayaan ugu soo xidhay giftin insha Allah biidnillah. Haddana kan afraad ayaan ku xidhayaa. Koolada baan marinayaa, kadibna aad baan ugu yar cadaadinayaa. Sidaan baan koolada ugu soo xidhayaa. Kooladuna waa kooladii kooraanka insha Allah sidii haddeer aan idin sheegay.
koolada ayaan ku shubayaa kadibna waan ku cadaadinayaa hoos baan ku cadaadinayaa asxaabay waa kaasaa sida ayaan kusoo dhameeyey kooladii ayaan aad ugu cadaadiyey kadibna waa kaas sida quruxda badan ayuu noogu soo baxay ina arkaysin ayaan rajeynayaa haddana baalkan ayaan haystaa kaa ayaan markii hore ina dhahay laakiin kan ay la qurux badnaaday kan ayaan kaga soo dhejinayaa 4 giftin insha Allah biidnillah asxaab sida uu noogu soo baxana waan isla arkaynaa insha Allah biidnillah waan goosanayaa maqaska ayaan ku jaranayaa marka aan qiyaasto kadibna koolada ayaan kusoo dhejinayaa insha Allah biidnillah koolada ayaan ku dul dhejinayaa iska ilaali gacantaada waan ku wareejinayaa kadibna sida ayaan ugu dhejinayaa waa aragtiin sida ayaan ugu soo dhejinayaa inta kalena waan soo qiyaasanayaa insha Allah sida ayaan ugu soo dhejinayaa waan soo qiyaastay waan jaray kadib waan jaray waa ka maqaska ayaan ku jarayaa sida ayaan ugu soo wareejinayaa insha Allah koolada alamiyooga dushiisa ku wareejinaa kadibna waan ku dhejinayaa waa kaas ayaan ugu dhejinayaa insha Allah asxaabi waa baaskooladii waxaan isticmaalayo dhinaca ayaan ka soo dhejiyay haddana waa aragtiin maasha Allah dhankii u dambeysay ayaa noo hadhay waana soo jartay bahasha waa kaas markaan ku qiyaasto ayaan jarayaa markas mid kastaba markaan ku qiyaasto ayaan jarayaa because hadii kale size-ka ayaa kaa dheeraan amba kaa gaabnaani ma mushkila hadduu u dheeraado laakiin hadduu gaabnaado u daran waa kana sida ayaan ugu soo wareejinaynaa insha Allah biidnillah sida ayaan ku soo dhameynay mid baa noo hadhay insha Allah inta dhinaca baa noo hadhay insha Allah biidnillah insha Allah inaad ka bogatin ayaan rajeynayaa kulli hawshiisu saa uma sii adko laakiin way yar hawl dheer tahay kulli farsamada gacantu aad ba u hawl badan tahay laakiin alaab hawl badnaatay alaab qurux badan oo ka soo baxda baa muhiima waa aragtiin maasha Allah saa qurux badan ayuu noogu soo baxay inta kale ayaan soo dhameystiranaynaa asxaabay dusha sare waxaan ku soo xirxiray baaladii oon soo jarjaray taimka aan dul dhigay ayaan soo jarjaray oon dusha ku soo wareejiyay sida ayaan tan ugu wareejinayaa insha Allah biidnillah sida umaan ugu soo xiray mid kastana intaan soo jarjaray umaan sida dusha ugaga soo xiray taas ayaa ina tusay taa uma ina tusay laakiin inta kale waa isku wada mid kastaba intaan size-kii la eegtay umaan sida u soo jaray waa aragtiin sida qurux badan uu noogu soo baxay maasha Allah ayuu noogu soo baxay run ahaantii asxaabi waan isku soo laabanay saacado kadib ayaan isku soo laabanay wiilkii yar ayaa igu kacay kadib waan iska dhigay marka waa kana saacado kadib ayaan isku soo laabanay insha Allah dhexda waxaan ku haysanaa waa baashi aynu tusayay waxaan jeedaa aan ka sameeyay iskaga aan ka sameeyay cadaanka baashan cadaanka ma aqaan wallahi waxa lagu raaf Soomaali kan baan gudaha dhigayaa sida umaan u dhigayaa sidoo kor noogu soo qaado farsamo waa faraq ku hayn ma maqasheen horta aluminium umaan dul dhigayaa aluminium weeyaan kanina aluminiumkii umaan dul dhigay aluminiumkii markaan dul dhigay waxaan rabaa in ay noqoto muraayad camal amba ay ii qurux badnayso waa aragtiin kooladan ayaan ku soo wada xidhayaa asxaabe kooladan ayaan 4 giftin kaga soo xidhayaa insha Allah biidnillah waa kaasa koolada ayaa ay qurux badnaynaysa 4 giftin kaga soo xidhayaa insha Allah biidnillah waa kana asxaabe markaan kooladii ku soo wareejinay sida quruxda badan ayuu noogu soo baxay shamacyada 3 shamac ayaan soo dul dhigtay maasha Allah tabaarakallah haddana waan shidayaa sidaas ayaa noogu soo baxday waa ka asxaabe markaan shamacyadii soo wada shiday sida quruxda badan ayuu noogu soo baxay inaad ka bogataan ayaan rajeynayaa waa kana run ahaantii waa alaab yar oo aad iyo aad u fudud misana maad aragtay hawl yar misana qurux badan waad aragtiin sida quruxda badan la ayuu noogu soo baxay shamacyadani waa shamacyo huruud amba dahabi xiya marka
waa kaada alaabtiina sidaa quruxda badan ayay noogu soo baxday inaa ka bogateen ayaan rajaynayaa runtii insha allah inagama mashquulin laakiin mashquul adduun un weeyaan waan inii soo wada insha allah waxyaalaan iyo waxyaalo kale oo ka khatarsan oo ka qurux badan insha allah biidnillaah soo duceeya asxaabe waxyaalaha yara dul dhigdhigtana waa waxyaalaha yaraa casaana oo loogu talagalay miisaska oo qurux ka dhigaya marka waa kaas asxaabe inaa ka bogateen ayaan rajaynayaa asxaabey waxaan jeclaystay inaan inila wadaago alaabtan yar misane bahalo lagu shubo lagu carfiyo kulley qof kastaba wuu garanayaa dabkaa yar laakiin bahaladan insha allah haddii aad garanaysiina waa garanaysiin haddii aanad garanayna waa bahalo yaroo aad iyo aad run ahaantii udgoon waad ka heli doontiin maasha allah awalkii hore waxaan ku shuban jiray cadar iyo waxyaalo caynkaasa ayaan ku shuban jiray laakiin hadda bahaladan baan helay run ahaantii markaa sida ugu shubdid udgoonka iyo carafta markaa guriga saa usoo gashin maasha allah tabaarakallah aad bay u udgoon yihiin waana kala kalarna mid ful buu urayaa mid wuxuu urayaa faraas mid wuxuu urayaa geedo yaroo sisi yaroo kala carfa yaroo aad u udgoon marka runtii waad ka heli doontiin kan ayaan ku shubanayaa kolley bahashan waad garanaysin awalkii hore xitaa markaan ku shuba cadarka wayga casaan jirto gudaha laakiin inkastoon ilaalin jiro oo markasta oon ku shuba cadarka aan masixi jiray laakiin haddii aad ku ilowdo way kaa casaan jirtay inkastoon ilaalin jiroon gacanta ku haynayay iminka dhibiq yar ayaan kaa ku siiye kanina waa basali amba ma aragtay waa bahalkan fraaskan basaliga weeyaan waa kaasaa bahashana waa kaasaa run ahaantii udgoonka iyo carafta waad ka heli doontaa bahaladanina run ahaantii aad bay u udgoon yihiin waad ka heli cadaradii waan kaga raystay horta run ahaantii aniga ahaan aan ku shubi jiray bahashana waxaa igu keentay kaado hadiyad ahaan kusiinteyda waa mahadsan tahay kaltuun aad baa u mahadsan tahay qaali marka waa kaada asxaabey maasha allah sida quruxda badan ayuu noogu soo baxay run ahaantii udgoonka iyo carafta waa waxaan ka sheekeyn karayn kulley markaad aragtiin unbaa iniguna ka sheekeynaysiin maasha allah ta kale ee labaad halka ayaan ku ridaa ciyaalkaana kaga qariyaa sidayna u arkin because bahashan qadhaarta kale ee labaadna waa sun aniga iga dhan marmar baan bahal yar baa ku dhex jirto caaga marmar baan isirahdaa ilkaha ku fur aniga qadhaadh carabka iga dareema marka halkaasaan ku ridaa halkan yare kale waxaa igu jira alaabtayda yare aan isleeyahay hore u qaado amba marka aan degdegsanahay aan xidhanayo ayaa igu jira halkaa hoose ayaan kaga riday ciyaalka waana ka ammaan marka insha allah ilaahay awlaada ha noo ilaaliyo insha allah iska xafidana bahalada ka xafida because maaragtay waa sun asxaabi inaad videogan ka bogateen ayaan rajaynaa aad ka hesheen videoga xiga intaan dib u kulmi doono waxaan iga tagaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ammaano allah salaamu calaykum